kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni qubanaha VOA. toddobaadkan barnaamijkeena qubanaha VOA-da waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Farro. qodobada aan idinku haynana waxaa kamid ah hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadda Shell inay ku guuldareysatay nadiifinta saliidka ka qubatay biyaha gobolka Delta Nigeria. Shellna waxay ku eedeysay dadka saliidda ka xada dhuumaheeda. goormaha ayuu qof sanado soo shaqeynayay awood u yeeshaa inuu hoosha ka fariisto dalka Kenya? dad badan ayaa wax ku filan aanan meel dhigan si ay shaqada u joojiyaan, kumana filna lacagta howlgabnimada. waxaa loogu yeeraa magacyo badan meelo kala duwan oo dunida ah sida tuk-tuk, bajaaj ama dudugley. sanado yar ka hor way adkayd in lagu arko jidadka magaalada Muqdisho. maanta se mootooyinka saddex lugoodka ah waxay shaqo tireen tagaasi fara badan oo Muqdisho laga raaci jiray. qodobadaasi iyo fikradihii Facebook-ga ay noogu soo diri jireen dadka barnaamijkan qubanaha la socda ayaan barnaamijka toddobaadkan idinku haynaa. shirkadda saliidda ee Shell ayaa ku guuldareysatay inay nadiifiso saliid kaga qubatay gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria, taasoo waxyeello gaarsiisay bulshada gobolkaasi ku dhaqan sida ay sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International. wariyaha VOA Henry Richwell ayaa warbixintan soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan. maranbiyoodka tuulada Bodo ayaa waxaa wasaqeeyay saliid ka qubatay tubooyinka saliidda qaada ee shirkadda Shell. kumanaan dadka tuulooyinka ku noola sida wadaadkan Christian Lekoya waxay noloshiisa beri ku tiirsanayd webiga Delta. shirkadda Shell waxaa halkan ay deganeyd muddo 50 sanadooda. wax kaaba dhaqaale ahna nooma dhisin. sanadihii 2008 iyo 2009 waxaa gobolka ku qubatay saliid 2 jeer. saliiddaasi oo baabi'isay nolosha dadka Bodo oo beeraley iyo kalluumaysataa. saliiddu waxay muddo dhowr toddobaad ah ku qubanaysay marin biyoodka Bodo sanadkii 2008 ilaa shirkadda Shell ay dayactirto dhuuntaasi saliidda qubaysay. Shell waxay eedeysay dadka deegaanka oo dhuumaalaysi saliidda ku xadayay. tuulada Bodo waxay ka mid tahay ilaa 4 goobood oo ay baaris ku soo samaysay Amnesty International iyo hay'ad aan dawli ahayn oo Nigeria ka dhisan. waan aragnay marinbiyoodyo weli wasaqaysan oo saliiddu ay kor sabaynayso. waxaa kaloo aragnay saliid ceyriin oo deegaanka ka muuqata. wuxuu leeyahay nolosha tuulada way burburtay. waxay ku neefsadaan hawo wasaqaysan, waxayna beertaan carro wasaqaysan. marka carruurtooda cunto caafimaad qabta ma siin karaan. hay-adda qaramada midoobay ee deegaanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo UNEP ayaa sanadkii 2011 sheegtay in saliid qubatay ay dhibaato caafimaad ku hayso deegaanka Ogoniland ee gobolka Delta. waa inay si faahfaahsan u soo gudbiso cidda nadiifisay, wakhtiga la nadiifiyey iyo sida loo nadiifiyey si dadku ay u ogaadaan. Amnesty International ayaa sii daysay warbixinteeda ka hor 20 guurada dilkii King Sarawiwa oo ka soo horjeeday waxyeelada ay shirkadaha saliidda u geysteen gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria. dad badan oo waayeelo ah ayaa isweydiinaya goorta ay awoodaan inay shaqooyinka ka fariistaan, sida ay sheegayso daraasad ay sameysay South Africa. in ka badan 40% dadka Kenya ee howlgabka ah ayaa ku qasban inay shaqooyinka sii wadaan. 40% kalena waxay u baahan yihiin taageerada qoyskooda. wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaase soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan. uma salana 65 jirkan qaadida jirgaan 20 litir qaad ah. Dominic Oliga ayaa howlgab noqday 10 sano ka hor kadib 30 sano oo ay shaqooyin dawladeed iyo mid gaar ahaaneed buu qabanayay, laakiin sida malaayiin kale oo Kenyan ah howlgab noqdayba waa inuu weli sii shaqeeyaa. ma jirto keyd u yaalla oo markaasi ku helayo howlgabnimadiisa, laakiin waxa uu helaa howlgabnimadiisa darteed $75 bishii. xilliyadan waxaan haystay waqti badan oo waxa xaaskayga ay soo shaqayso waxbaan ku kordhin jiray. waxa deegaankayagu markaasi aanu haysan.
shirkadda maalgashiga fadhigeedu yahay koonfur africa Alexander Forbes ayaa sheegtay in Kenya ay tahay meesha ugu hooseysa qofka howlgabka noqda lacagaha uu ka helo isla mar ahaantaasina 10% dakhligiisa. Madaxa faa'iidada barnaamijka howlgabka Kenya Edward Odundo ayaa qaba in Kenyaanku ay tahay inay keedsadaan wax badan. haddii aad howlgab noqonayso waa inaad heshaa ugu yaraan 40% wixii aad heli jirtay, laakiin haddii aad helayso kaliya 10% waxay muujinaysaa inaad helayso lacag aad uga yar intaad u baahnayd xitaa tan asaasiga ah. waaxda Social Security Kenya ayaa daboosho badi baahiyaha shaqaalaha Kenya oo dhibaatooyin dhinac musuqmaasuq iyo arrimo la xiriir sidoo kale haysata. Alexander Forbes ayaa sheegaysa in kalabar Kenyaanka ay ku tirsan yihiin qoysaskooda. Wazingo Jacob oo 22 jir ah suuqleyna ah ayaa qaba sidan. waa iska dabeecadan qabno bini'aadan ahaan inaan caawino waalidiinteen, maxaa yeelay ka fiiri dhanka wanaagsan waxay naga taxadareen dareentan iyo markiiaan yarayn ilaa ay iskuulkeenna geeyaan. marka waa nimco, waa mid la aqbali karo bulsho ahaan, niyad ahaan inaynu dib wax u siino hooyo iyo aabe. laakiin Faith Mutiza oo 27 jir ka shaqaysa hotel ayaa qabta waxaan qiyaasayaa inay xoogaa adagtay maxaa yeelay joogitaanka Nairobi raqiis maaha markay timaado dhinaca wax kiraysiga. waadna garanaysaa inta aad ku bixinaysay arrimahaasi. waxaan wax siiyaa 3 qof. ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaya in Kenyaanku ay hadda ku nool yihiin meel ka shishaysa halkii ay joogeen 20 sano ka hor, taas oo qayb ka ah kobaca bulshada Afrika oo micnaheedu yahay in waddanku uu rajayn karo in cadaadis badan uu ka fulo sidii uu u fidin lahaa adeegyo duqowda sanadaha soo socda. in haatan sahray waxaynu eegaynaa fikradaha ay daawadayaasheenu inoogu soo gudbiyeen bogga aynu ku leenahay Facebook. cabdiraxmaan furo waa sidaasi. cabdiraxmaan Jabbaar Sayfuddin oo ku nool dalka Djibouti waxa uu yiri haddaan ogaan lahaa waan u sheegi lahaa, lacagna kama qaateen. mursal geele shire oo jooga Caabudwaaq waxa uu leeyahay tani waxay sahlaysaa in kooxaha dhexdooda ay iska shakiyaan, halkaasina ay ka dhalato khilaaf iyo shaki sii baahinaya midda hadda ka dhex jira. Cabbaas Maxamuud Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu yiri waxba kama soo kordhi doonto haddii xitaa la dilo, hogaamiye kale ayay dooranayaan. deeqyaro oo aan sheegin halka uu joogo waxa uu yiri aad ayaan u soo dhaweynayaa cid kasta oo argagixisada wax nagala qabanaysa. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah fikradaha daawadayaasha barnaamijka ku xiran ay noo soo direen. wixii fikrada ama tala noogu soo hagaaji bogga voasomali.com ama bogga aanu ku leenahay Facebook. wax kasta oo aad ugu yeerto bajaajtu maanta waa gaadiidka ugu shaqada badan magaalada Muqdisho, waxaana lagu jeclaystay in lacagta lagu raaco ay jaban tahay iyadoo shaqo u abuurtay dhalinyaro fara badan oo laga cabsi qaba inay tahriibaan. wariyaha VOA Jacfar Kuukay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho. bajaaj waa gaadiidka ugu badan ee ay indhahaagu qabanayaan marka aad joogto Muqdisho. saraakiisha arrintaasi qaabilsan waxa ay sheegeen in tirada mootadan 3 lugood leh marka laga hadlayo Muqdisho oo kaliya ay sare u dhaaftay 7,000, waa inta sharciga loo jaray. dadku faa'iido fara badan ayay ku qabaan oo waxa ay aad ugu fududeysay socdaalka magaalada gudaheeda. sidaasina waxaa suuqa kaga sii baxay baabuurtii kale ee sida taksiga u shaqaynaysay, kuwaasoo qiimaha lagu raaco uu 90% ka badnaa midka hadda dhugdhugleydan lagu kiraysto. waxaa laga yaabaa danta aad leedahay inaad si sahlan aad ugu gaartid, si fudud aad meesha ugu gaartid. waxaa laga yaabaa mararka qaar wadooyinka oo ciriiriya Muqdisho dartood inaad maaragtay ay ku fududaato inaad luuqyada oo kale ka baxdid. dhinaca dhaqaalaha markaad fiirisid waxaa arkaysaa inay aad raqiis u tahay oo looga raystayba beelkii iyo dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo rogtay gaadiidkan fudud canshuur joogta oo maalintii gaaraysa $1. inta badan wadayaashu ma diidana, laakiin waxa ay aad uga leexleexdaan marka maalintii aanay soo shaqo tagin amaba ay xanuunsan yihiin xataa lacagteeda laga rabo. qoyskii aniga waxaan 9 qofood ana iyada ugu xoogsada ilmihii qaar iskool ay ka dhigtaan, risq iyada ugu doonana. waqti aan la joogo wallaahi billaah $4 $5 ayaan haynaa oo indhacadeys ku galnaa. waxaana inta badan lagu eedeeyaa dhalinyarada ka haysa inaanay sharciga wadooyinka u hoggaansamin, taasina ay dhaliso shilal fara badan oo ay iyagu sabab u yihiin.
accidentiga markii loo fiirsho boqolkiiba 70 waxaa ka hosgareeya bajaaj. waxaa la mariyaa dhalinyarada kaxaysa wadada ay maraan darawallada kale oo waxaa loo jaraa laysin ha yeeshee uma hoggaansamaan amaba aqoonba uma laha tilmaamaha taraafikada ee wadooyinka ku yaala. مثلا waxaad arkaysaa 30 inuu ku socdo meesha la rabo ku qoran meesha ma fiiranayaan waa iska soconayaan waxay ku soconayaan 60 kilomitir saacadii. haddana waxaa saaran cadaadis xooggan oo kaga yimaada ciidamada kala duwan ee dowladda. wadooyinka qaar waa laga mamnuucay oo ma mari karaan, kuwa kalena waxaa fadhiya rag lacag ka doonaya, waxaanay taasi ku qasabtaa in ay xaafadaha dhexdooda wadooyin aan marid ku habboonayn qarda jeexaan. macnaha lacagtii ay hadda bajaaj ku gadanayaan way ku tahriibi karaan, tahriib way ku gali karaan. marka hadda macnaha dawladdu waxaan ku boorinaa inaysan ugu kalifin inaan bajaajadeena gadano oon ku tahriibno. waa gaadiid aad u fudud, qiimo jaban, xilli walbaana la heli karo. dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdishona ay si aad u soo dhaweeyeen. ha yeeshee wadayaasha gaadiidkan iyo dhinacyada dawladda Soomaaliya u qaabilsan kala habeyntooda waxa ay isla haleeli laayeen habka ugu habboon oo ay hawshoodu ku sii socon karto. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho. dalkan Mareykanka darawaliinta ku hurdooda gawaarida ay wadaan ayaa sabab waxay u noqotaa burburka qiyaastii 100,000 oo baabuur sanad walbaba. culayska haysta darawaliinta iyo carooha ayaa sidoo kale sababta shilal fara badan. haatan si farsamo cusub ayaa ka caawin doonta darawaliintu inaysan ku hurdoonin marka ay wadaan baabuurta, sida ay ku soo waramayso wariyaha VOA-da Jessica Berman. wariyahayaga Axmed Sheekh Cali ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya. in aad la macaamisho saxmad joogto ah wadooyinka yaryar iyo kuwa waaweyn ee magaalooyinka waa arrin dhib badan oo dulqaad iyo waqti u baahan. marka darawaliintu ay daalan yihiin ama ay caraysan yihiin waxaa bata shilalka, dhaawacyada iyo dhimashada dhaliya. shirkadda xagga teknolojiyadda baabuurta ee Forcia ayaa leh waxaynu haynaa xalka. waxa ay iqtiraacday kuraas kuwa baabuurta ah oo xasilinaya darawaliinta, gamacyadana kala diriraya. dareemayaal lagu sameeyey kuraastan ayaa cabiraya calaamadaha nolosha ee darawalka kadibna jawaab bixinaya. waxaan cabirnaa heerka neefta iyo garaaca wadnaha. halkaas ayaan ka cabirnaa heerka cadaadis ama tamar ee darawalka. haddii uu cadaadis ku haysto waxaad helaysaa fariin ku xasilisa. haddii aad tamartaad hoosaysana waxaad helaysaa fariin ku xoojinaysa. farsamadii ugu horreysay ee kuraasta noocan ah ayaa adeegsanaysa fariimo la naqshadeeyey iyo hawo isla socda oo ka jawaabaya baahida dareen ee darawalka. kursigan ayaa qaboobaya haddii darawalku uu dareemo kuleel, wuxuuna suuqyada soo gelayaa sanadka 2020 si darawaliinta uu xasiliyo oo uu shilalka u yareeyo. intaasna waxaan daawadayaal ku joojinaynaa barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan. wixii fikra ama talo ah noogu soo hagaajiya qubanaha @voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook-ga. intaan toddobaadka dambe dib u kulmi doono waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.